xarunta cusub ee ciidanka dadamiska qaranka Soomaaliland ayaa maanta laga dhagax dhigay magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool waxaana xaruntan oo noqonaysa tii ugu horeysay ee ciidanka dadamisku ka hirgeliyo gobolka Sool si wada jir u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Sool maayarka degmada Laascaanood iyo agaasimaha fulinta ciidanka dadamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoona ay goobtaasi goobjoog ahaayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda 24 Construction Company oo fulinaysa dhismahani maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale iyo agaasimaha fulinta ciidanka dadamiska Cabdilqaadir Cumar Xaashi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda xaruntan maanta la dhagax dhigay ay u leedahay magaalada Laascaanood waxaanu dhagax dhigaynaa xarunta dadamiska ay yeelan doonto magaalada Laascaanood si aad ogtihiin magaalada Laascaanood maalinta ka dambaysa way sii balaaranaysaa way sii fidaysaa marka maanta waxa la dhagax dhigayaa xaruntii abid ugu horeysay ee yeelato dadamisa magaalada Laascaanood xarunta oo noqon doonto xarun weyn oo standara oo si wacan u qalabaysan qalabkeedii iyo ciidankeediiba u dhan yahay waa guul soo hayatay guud ahaan shacbiga ku nool magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Soolba saad la socotaan dabku waa aafo haddaan degdeg lagu gurmin wax badan buu yeelaa ummadda iyo mujtamacaba dad iyo dunyaba marka xaruntii maanta laga bilaabo way furmaysaa wata la dhagax dhigayo hawshaynu halkan u taaganay oo ah dhagax dhigayo bilowga dhismaha xarunta dadamiska degmada Laascaanood iyo gobolka Sool oo xarunteedii bay isku noqon doontaa hadii Ilaahay ka dhigo sida uu qorshuhu yahay dhagax dhigan waxa isaguna barbar socda bilowgii dhismaha oo dhammaanba kharashka ku baxaya 100% dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hormoodka u yahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay kharashkiisa bixisay isla markaana qandaraaskiisa hore loo qaatay oo shirkadii qandaraaska qaadatay oo kharashkiina gacanta ku haysata ay goobtan inala joogto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii ciidan dadamis ahaan inaanu xaruntii u horeysay ee Laascaanood laga hirgeliyay abid aanu maanta iyadana dhagax dhigno injineer Cawl Cagtar oo ku hadlayay afka shirkadda 24 Construction Company ayaa ballan qaaday in ay dhismo qurux badan ka taagi doonaan goobtan anigoo ku hadlaya afka shirkadda dhisaysa qandaraaskan dadamiska waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka maamulka degmada iyo taliyaha guud ee ciidamada dadamiska agaasimaha sida quruxda badan ee ay shirkaddan u soo dhaweeyeen ay ugu dadaaleen inay Laascaanood noqoto magaaladii saddexaad ee dadamis loo dhiso runtii wax aad lagu farxo anagu ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadanaa waqti muddo yar oo aad u kooban inaanu ku dhameystiro dhismo aad u qurux badan oo dhismaha labaad ee ugu quruxda badan Soomaaliland inaanu halkaa ka soo saaro ayaanu ballan qaadanaa oo uu noqon doono wax dadka iyo gobolkuba u manaafacadsado taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Axmed Cabdilaahi Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shire ayaa dhankooda ku dheeraaday faa'iidada ay xaruntan u leedahay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waa dad wanaagsan oo runtii ciidanka biliiska habeenimo maalin ku dhex jiraan si fiican baa loola shaqeeyaa iyaga wixii waran noo keena iyaga hawshan la qabta kaliya anagu waxa ma qabaneen oo gacmahii baan anaguna laakiin indhaha iyagu waa dadka oo dadkan ka faa'iideysana dawladuna kulli way soo jeedaa waxyaabo fara badan way ka qabatay imkana anagu wiigan imka naga tagay ciidankii biliiska waa qoray waxaanu geynay Mandheera la geeyo loo dhacay magaalada laga qoray shalay 25 dabdamisa laga qoray waxa ka sii horeysay shaqo qaran baa ka horeysay shaqadu si aanay dadku u dareemin bay u socotaa way soconaysaa oo sanad walba sanadkeeda waxba u kordhaya dalkan iyo dadkan ciidanka halka soo degay waa inoo ciidan horta marka hore wuxuu ciidan u yahay waxayna hore u haysan haddii maanta magaalada dab ka kaco ninkeen ugu yeerna waa isaga daminaya iyaduna waxay noo soo kordhay in dadku saa u fahmaan oo wixii inoo soo kordhay wax inoo soo kordhiya oo aynu ku xisaabtamayno in la gartaan wanaagsan kolley wax dhib weyn ma jiraan magaaladan mudanayaal kolley maanta maalin weyn waxaan u maleynayaa waa mashruucii shanaad aynu sanadkan intuu dhamaaday 2020 aynu isugu nimaadno gobolka Sool taas marxaati waxay ka tahay horumarka iyo horsocodka deegaankani oo hore ugu talaabsaday ilaahay baa mahad iska leh maanta halkaas inaan joognaa waxaan u maleynayaa shalay
waxay ahayd sida taliyuhu sheegay ilaa 200 qof oo shaqaale ah ayaa sanadkan la qaatay 152 qof oo shaqo qarana kontumeeyo bileysa 25 kan imika aan ku jirno maxaa la yiraahdaa ciidanka dendemiska tigadi qalalnayd baa la dhex dhigay mashruuca GBLG-ga ayaa la dahfuray oo trainingkiisa imika laga soo baxay maantana xaruntii dendemiska baynu u joognaa maxaa la yiraahdaa dhagax dhigeedii waa waxaan hore loo haysan runtii maanta gobolka Sool wuxuu ka mid yahay meelaha ugu horeeya deegaanada Somaliland haddii dhinaca horumarka iyo nabadda ma noqoto. Libaan Axmed Ciise Libaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.